رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre Weeliyaan wasiiro xildhibaano iyo safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya wadanka Itoobiya ayaa booqday maxaabiistii Soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsida wadanka Itoobiya ujeedada booqashada ra'iisul wasaaraha dalka ugu tagay muwaadiniinta Soomaalida laga soo daayay xabsida wadanka Itoobiya ayaa ahayd sidoo la qaybsan lahaa dareenka farxadeed ee helada iyo maxaabiista ee ku aadan dib u midoobaan sanado kala duwan kadib dadaal dheer oo ay dawladda Soomaaliya ku bixisay ayaana suurto gelisay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maxaabiista xaaladooda caafimaad mid u xog wareysanaya una sheegayay inay ku soo dhawaadaan dalkooda hooyo ayna yihiin ubaxa dalku u baahan yahay inay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxay indhahaygu qabanayeen waalidiin markay arkaan wiilashooda farxad darteed afkooda hadalka ka soo baxayo ahaa ducay u jeedinayeen xukuumadda oo suurto gelisay inay arkaan ilmahooda sanado kala duwan oo aysan ka hayn aqbaar ku aadan nolol iyo geeri mid ay ku sugan yihiin إلهو حلك مقات إلهو لفضل إلهو كخير إلهو حلبنا وحاضر إلهو سبحانه وتعالى من كتوغنا إلهي maxaabiistan ayaa dhamaantood ahaa dhalinyaro marka laga reebo afar oday waxaana ku jiray oo indhahaygu qabanayeen wiil daadiisa aan ku qiyaasay 20 jir isla markaana lagu xukumay xabsi 20 sano ah hayeeshee ka qaatay muddo 4 sano ah waa kuwan qaar kamid ah maxaabiistii laga soo daayay xabsiyada Itoobiya oo la hadlay warbaahinta dawladda ka codsaday inay u sameeyso shaqo abuur أنا ما أتصدقناه وأنا أسكو موقفنا أنا أسكو قلبنا أنا دد مدة بدن هوا هيرنادي أو هذا رفع ذي بدن همارنا أنا دلك هويا إيو ما يوغاني هن دولت ولي أتدونا يوغاني مركون ما أتصدقيه أني شقة عبورنا نسميه ودولت أنا قو أتصدقيه أنا شقة علي ودنا هنجي أنا أريم نوال بقينا دلكيسة واحد دام تعين شيء وحلا يا مركان نوال بودل كاجي هو يكسر نقو واحد كودا ما مشرو واحد معنيه ما أنت واقرتان أنا واحد محبس مني وأنا رسوق الدولة هالقاس أنا كنتي باش أدون تا وحكي عنا بينتين إلا أنت الشغل اللي قبنا أنا قريب بين السيسي دول بين السيسي وحين الدريال بين السيسي وحين ناقبتي وحن معنيه أنا فري دكسي ملأ قبيلتي وحيد يسموا يعني أنا جو بعد نقانا يدقوه أمد ولا لا بل إن درين قب عقلي الدنيا اللي ساركه وقوة لهن دحية إيمانه وحويان هرادية الدل كان الله هري بابيي القشاش وحوي دبعتنا نوكين عدو كاشنا يو إن أنا لا دجالنا وحنا ديار أن هاي أنه كعرب جرنا يعني دجال أن هاي دي دلنيارة الصومالية ميل كستوي شوف تدل يدي بدو حلو الدنيا إن قرن ما دوحة عيت هاي الأوجادو إن لكلا صار جارهان دلنيارة القبل كأوضل وقوي الصومالية الأموال كسوي شيء حلو الدنيا إلا كلا أوجادو قبيل كأي قرن ما دلك دي بدي سهدات كوحي رنت واحد قبيلة أو كاتب إيمان كرامتشو قرن با كاتب إيمان كرام qarankii Soomaaliyeed baa naga daba yimid oo godkii aan ku jirnay naga soo saaray muwaadiniinta Soomaalida laga soo daayay xabsida dalka Itoobiya ayaa kuwa aan eheladooda la kulmin oo u badan kuwa ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxa ay dawladda Soomaaliya u sameysay goob ay degaan inta ay kala kulmayaan eheladooda isla maanta ayaa waxa deeq raashin iyo xoolo nool isugu jirta gaarsiiyay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda iyagoo ku wareejiyay deeqdaasi wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya oo gacanta ku haya xaaladda maxaabiista xildhibaan aadan isaaq oo ku hadlayay magaca xildhibaanada iyo wasiirada deeqda gaarsiiyay muwaadiniinta Soomaalida sheegay inay uga qayb qaadanayaan taageerada maxaabiistan la soo daayay xoolo dhan 10 neef oo xildhibaanada dhalinyarada iyo reer Jubbaland iyo dhammaan ama dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan iska soo arooriyeen inay ugu tala galeen walaalahooda dalka dib loogu soo celiyay inay ugu deeqaan tabartooda inta noqotay waxaan halkan guddoonsiinayaa wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta kale ee dawladda inay ku daysadaan xildhibaanadan ay qayb ka noqdaan taageerada ballaaran ee loo sameeyo muwaadiniinta Soomaalida laga soo daayay xabsida wadanka Itoobiya waa mahadsantahay xildhibaan aadan iyo wasiirka xanaanada xoolaha wasiiradeeda Maryan kadaha iyo xildhibaan farxiyo waa mahadsan yihiin waan ugu mahadcelinayna waxaan ka rajaynayaa xildhibaanada kale wasiirada kale inay ku daydaan Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho